waxaana ka muuqatay joogooda waxa dadka aanu tagnay dad maxaan ku raadayay islaamnimada iyo ehelnimada iyo Soomaalida aad iyo aad u jecel maxaan ku raadayay aadna u soo dhaweynaya aad u tixgelinay qoladii reer Soomaaliland aad u tixgelinaya oo soo dhaweynaya bay ahaayeen ilaahay baa mahad leh maxaan ku raadayay dad aad bay noo soo dhaweeyeen haddii hawl noqotay iyo haddii maxaan ku raadayay gaarigan noociisa yahay Soomaaliduna ay u taqaanaan Leila Calaawida lagana soo dhacay deegaanada Soomaaliland qaasatan magaalada Hargeysa ayaa taliska booliiska degmada Cabudwaaq waxay qabteen habeennimadii xalay ahayd gaarigan ayaa maanta waxaa lagu wareejiyay gudaha taliska booliiska mulkiilihii lahaa oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Cumar Xaashi kaas oo dhawaan looga soo dhacay magaalada Hargeysa goobta gaariga lagu wareejinayay oo ay ku sugnaayeen qaar kamid ah eheladii gaariga laga soo dhacay iyo waliba mulkiilaha iyo saraakiisha booliiska ee degmada Cabudwaaq ayay si wadajir ah uga hadleen wareen waxa goobta ka hadlay taliyaha booliiska ee degmada Cabudwaaq Farxaan Xuseen asagoona sheegay gaarigan iyo waliba siyaabaha kala duwan oo ay u mareen qabashadiisa raxiim waxaan maanta halkaan ku wareejinaynaa gaari Leila Calaawida oo laga soo dhacay Hargeysa oo booliiska galmudug oo dhan ay iskaashi iyo wada shaqayn aan caadi ahayn ay ku qabteen ilaa caasimadda ilaa degmada Cabudwaaq gaarigaas oo uu iska lahaa nin mulkiilihiisii halkaan uu taagan yahay Cabdiqaadir Cumar Xaashi oo leeyahay ayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan gaarigiisa ku wareejinay si nabada asaga iyo maxabuuskiiba dhanka kale mulkiilaha gaarigan Cabdiqaadir Cumar Xaashi iyo waliba qaar kamid ah ehelada Cabdiqaadir la socday ee la baadigoobay gaarigani oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay sida quruxda badan ay ugu adeegeen laamaha amniga degmada Cabudwaaq iyo kuwa galmudug ayagoona dhanka kale u mahad celiyay bulshada degmada Cabudwaaq oo ay sheegeen in si qurux badan ay ula baadigoobeen hantidooda ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa ciidanka booliiska maamul goboleedka galmudug state taliyahooda degmada taliya qaybeedka gobolka ilaa guud ahaan saraakiisha halkan taagan dhammaantood oo run ahaantii gaarigaasi gacan ku dhigistiisa iyo wax ka qabashadiisa warkii dhiilada ahaayeen u soo sheegnay si fiican oo qurux badan oo booliisnimo leh oo waxa weeyaan aqoon iyo khibradba leh arrintaa uga howlgalay run ahaantii gaarigaasi sida uu taliyuhu sheegay walaal khaldan ayaa gurigeyga ka soo kaxeeyay waxaanu soo aaday gaarigaasi halkan maanta aan joognay Cabudwaaq dhuusamareeb buu baxay run ahaantii booliiska halkan jooga taliyahoodu isagoo khibrad u leeyahay adeegsanaya waxa uu markiiba xiriir la sameeyay dhammaan qaybaha kala duwan iyo fadhiyada booliiska galmudug arrintaasina ilaahay mahadi waxay suurto gashay in dhuusamareeb lagu qabto xalayna uu halkan u soo wareejiyay arrintaasi si kiisku halkii uu ka bilaamay oo ugu dhameystiro taliyuhu aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mudane taliya Farxaan Xuseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka iyo baac mushtarka deegaanka degmada Cabudwaaq guud ahaantoodba oo 100% naga gacan siiyay arrintaasi naguna farxad galiyay aad iyo aad baad u mahadsantiin gaar ahaan taliyaha saldhigga oo garab taagan Farxaan Xuseen dhammaan shacabka maxaan ku raadayay iyo dadkii wax nagala taray awsha wax nagala qabtay aad iyo aad baan u hambalyeynaa aad iyo aad baan u salaameynaa waa ilaahay baa mahad leh oo nu mahad celinaynaa gaarigaas maxaan ku raadayay saa uu sheegay Cabdiqaadir walaal qaldan baa soo kaxaystay maxaan ku raadayay uu ka soo maxaan ku raadayay kolito wuxuu soo maray Itoobiya Soomaaliland markuu soo baxay Itoobiya soo maray maxaan ku raadayay xagga kale Itoobiya markuu soo baxayna halkan uu maray wuu dhaafay tan markii loo sheegay la soo gaarsiiyay taliyaha kiiskii ama dacwadii la soo gaarsiiyay isaguna si fiican buu uga soo hawlgalay maxaan ku raadayay inta maxaan ku raadayay Muqdisho ka sokaysa eriyada galmudug oo dhan uu xidhay halka hadda wax lagu qabtay dhuusamareeb oo magaalada madaxdiya waxaan ku xalay soo wareejiyay imika kolito barakowdi meelaha tahay oo salaadii hore ka soo baxayna uu nagu wareejiyay furihiisa isaga maxbuuskiiba hadii ilaahay ka dhigo insha Allah aad iyo aad baan dadka iyo maxaan ku raadayay maamulkaaba ugu mahad celinaynaa ilaahay baana mahad leh waxaana ka muuqatay joogooda waxa dadka aanu tagnay dad maxaan ku raadayay islaamnimada iyo ehelnimada iyo Soomaalida aad iyo aad u jecel maxaan ku raadayay aadna u soo dhaweynaya aad u tixgelinay qoladii reer Soomaaliland aad u tixgelinaya oo soo dhaweynaya bay ahaayeen ilaahay baa mahad leh maxaan ku raadayay dad aad bay noo soo dhaweeyeen haddii hawl noqotay iyo haddii maxaan ku raadayay wax soo qabad noqotaba aad iyo aad bay noo soo dhaweeyay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa gaarigan oo ugu dambeyntii furihiisa iyo waliba shakhsigii soo dhacay lagu wareejiyay mulkiilihii ayaa waxaa la filayaa in dib ugu laabto deegaanadii laga soo dhacay ee Soomaaliland ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو TV-ga soo yaal Cabudwaaq